tani waa balcad deegaan taariikhi ah oo ku yaala waqooyiga Muqdisho deegaan qadiimi ah oo xarun u ah ganacsiga iyo wax soo saarka beeraha waxa dhaxmara wabiga Shabeelle waa deegaan muhiim u ah isku xirka caasimadda iyo gobolada kale ee dalka warbaahinta shisheeye qaar waxay qoreen in balcad ay ku jirto gacanta qawaarijta laakiin dadka degan magaalada iyo muuqaalka wadooyinka waxay sheegeen qiso ka duwan gawi ahaan bataas degmada balcad waa degmad nabadgelyo leh wax baraboleena ma qabno magaalada hadda waxaan ka shaacabeynaa buseejadii baabuurka oo arkaysa anaga iyo maamulkeena iyo odayaasha dhaqanka iyo booliska degmada balcad waa degmad seefa waa meesha ugu nabadgelyada Muqdisho iyo balcad waa hadda meesha ugu nabadgelyo badan wax baraboleen oo degmadan ka jara ma jiraan cid degmada balcad seef ma tiray cid oo degmada Sigooni kula dagaashan waaye degmadayna alxamdulillah ilaahay idinkiis ilaa 5 saac ilaa 6 saac meeshan jooga wax dhib ma jiro wax rafaad kuma arka alxamdulillah shukr bil caalamiina meeshan ku shaqeystaa ganacsiga ku shaqeystaa wax dhibna kuma arka hadoo la yiraahdo nabadeedna bashbashi barwaaqo waaya ambiheena noo baxo babaaygeena noo baxo nabadeedna noo jar alxamdulillah shukr bil caalamiina dhamaan waa wada joognaa miiskeyga ii furan oo ku nabad qaba suuqyada ayaa mashquul ah beeraleyduna waxay ku howlan yihiin tacabka beerahooda dalxiisayaal ayaa soo booqanaya bilicda magaalada ee dacallada wabiga Shabeelle balcad waxay tahay tusaale muuqda oo kamid ah adkaysiga shacabka Soomaaliyeed inkastoo cadawgu ku celceliyo dacaayad iyo marin habaabin xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta ayaa ah mid ka duwan shacabka ma quusanayaan mana daalayaan waxay ku kalsoon yihiin ciidamada difaaca qaranka ee garab taagan yani anaka degan magaalada balcad iyo degmooyinkeeda agagaarkeeda nawaxiyaasheeda yani baadiyaheeda anaka degan wax dhibna kuma qabno balcadna amni leedahay dawlad leedahay oo ka taxadarayaan wax dhibna ma aragna nabada ku seexnaa nabada ku soo kacnaa hadda meesha oo dhib ku jirna wad la'aan jirna taamaha dib ma qabno nabadna waa haysanaa ma sha Allah sawirka magaalada balcad wuxuu muujinayaa bulsho isku duuban ciidan go'aan adag leh iyo qaran dib u soo kacaya tani waa Soomaaliya aan had iyo jeer laga arkin warbaahinta shisheeye Soomaaliya ay dadka deegaanadu ay ku nool yihiin rajo wanaagsan amaan iyo soo kabasho dhab ah deegaano ay ciidanku qaranka ka difaaceen dhibaatada qawaarijta iyo deegaano higsanaya mustaqbal ifaya ma aha balcad oo kaliya oo si qaldan loogu sheegay inay ku jirto gacanta qawaarijta deegaanada Sabiid iyo Caanoole ayaa iyaguna lagu faafiyay warar been abuur ah iyadoo la inkirayo dhiigii iyo nafihii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u hureen xoreynta iyo dadaalka ay Soomaaliya iyo beesha caalamka ku bixiyeen dagaalka ka dhanka ah argagixisada guud ahaan dalka ciidanka qaranka waxay ku taagan yihiin safka hore ee ceel dheere taliyaha ciidanka dhulka ayaa dhiirigeliyay ciidanka safka hore ee ka difaacaya qaranka taasoo dhibaad maraysaan inaad ka guulaysateen cadawga godadkaas aan aragnay ku jira runtii waxay na tusinaysaa dadaalkiina iyo ka go'naanshihiina iyo geesinimadkiina waxaa la rabaa marka hadduu alla yidhaaho in intaa in ka badan aan ku sii talagalno waayo dalka iyo dadku waxay sugayaan waa idinka waxa la rabo nimankaas kolba meel god ka qodanaya ee hadda raba inay godadkaas iyo guryaha dadka ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed guryahooda intay god ka qotaan la burburiyo oo halka ku burburaan cidda kaliya tay hadda wax ka qaban karto waa idinka marka waxaan rabnaa hadduu alla yiraaho waxaan idinku imaaday waa inaan guusha aad gaadheen idinku mahad celiyo intii inaga shiideen Ilaahay u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay noo caafiyo waxaa la rabaa marka guusha waa la hayaa waa la adkeeyaa Soomaa haddaad guul gaadhid lagaaga daba yimaado guushii waxa ma noqonayso waxaan rabnaa hadduu alla yidhaha meesha aad qabateen iyo halka aad joogtaan in horey looga socdo oo 10 kiiloomitir 20 kiiloomitir aad ka socotaan mooye cidda halkan ku hadhaysa waa inay shaqadaas qabato inaysan dib u noqon inaysan dhicin in la yidhaahdo webigan xagga ka maray iyo saasay noqotay ninka ragga cadowgu uguma yimaado meeshuu degan yahay isaga cadowga meeshiisa ugu taga askari xoogga dalka Soomaaliyeed waxa laga rabaa meeshuu cadowgu joogo inuu cadowgu uga baqay inuu isaga uu cadowgu meeshuu ugu imaanayo uu ka fikira ma aha marka waxaan rabnaa in roondada la badiyo la socdo la wareego fursad ba aan loo siinin nimankaas inay ku soo hamiyaan inay meel kale ay tagaan hadduu alla yiraahdo
ciidanka safka hore ee difaacaya qaranka rag iyo dumar isku duuban kuwaasi oo safka hore ugu jira la dagaalanka xagjirnimada. Sabiid iyo Caanoole dhawaan waxaa halkaas xukun dil ah lagu fuliyay askar lagu helay khiyaano qaran, la shaqaynta qawaariidta iyo maleegista dhibaatooyinka. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas Odawa Yuusuf Raage oo ka hadlay toogashadaasi ayaa yiri: saakay halkaan umaanan kaarani man inaan idin soo booqano umaanan kaanani man socodyadeena caadi yahay idin kugu imaan jirnay waxaan u nimiday niman asalkii ahaa ciidanka qaranka lagu aaminay qarankoodii lagu aaminay dalkoodii lagu aaminay dadkoodii lagu aaminay inay ilaaliyaan nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu aaminay inay ilaaliyaan ay dhowraan sharafka iyo karaamada ay dadkaan u lahaayeen lagu aaminay dawladnimadii ayaa waxay dib ugu soo noqdeen dadkii ayaga ay ilaaliyaasha ka ahaayeen maxay sababtay waxay sababtay saaxiibadoodii difaaca kula jiray inay qiyaameeyaan oo ayaga gacmahooda ay ku baxaan qaybo kamid ah ragga difaaca kula jiray aad bay sufaan abaalmarintoodu marka maxay tahay yaa say u bilaabatay qof kasta oo khiyaano qaran ku kaca darajada uu doonyaha lahaado nuuca uu doonyaha ahaado shaatiga uu doonaha ku jiro qof kasta oo ku kaca khiyaano qaran oo qarankiisa khiyaano oo dadkiisa khiyaano oo dalkiisa khiyaano saaka kuwaanu meeshay mareenay mari doontaa. Dagaalka lagu xureynayo deegaanada yar ee qawaariidta ku dhuumaalaysanayso wuu socdaa. Dowladda Soomaaliya waxay dadaal badan ugu jirtaa in dalka oo dhan laga xoreeyo qawaariidta iyadoo guulo laga gaarayo furimaha dagaalka, dhaqaalaha iyo fikirka marin habaabinta. ما شاء الله هو كان سكعر يعني ayagu ana shid yar oo ma aragtaa af Carabi ay ku hadlaan diin kale ma hayaan waxa diin looga dhigay ciidankii markay la mid ka ah waa kuwa maan la weytaad aragteen mobilada ka aragteen social media ayagoo la baxsanayo ayagoo qoriga qaadi waayay iska dhigay ayagoo ilmo yar yar lugaha geedaha uga xiray rajaalka yarka Soomaaliya arag labada wiil oo yarka oo daada yar oo la wareysanayo gobolka Galaan ka nimid lana ka soo qafaalay dhabarkooda waa Allah ya hadda waa wada ul la garaacay saysan furinta u cararin lugahana geedaha looga xiray waxaad aragteen oo dhan waa wax argay gooy waa wax noocaas lagu soo qasabka lagu soo dagaalgelinayo oo ikhtiyaarkooda iyo doorashadooda qof idinkeeda kamid oo ciidanka lagu qasbamiyaa jira qof walba ikhtiyaarkiisa soo kuma dooran isagu laakiin ayagu waa qafaal waa niman la soo qafaalay waa niman markay goobaha dagaalka joogaan lugaha geedaha looga xiro. Balcad iyo dhammaan deegaanada qawaariidta laga xoreeyay maanta waa calaamad muujinaysa guulo waaweyn ee laga gaaray amniga iyo rajo xoogan oo tusinaysa in Soomaaliya ay hore ugu socoto nabad xasilooni iyo horumar waara.